Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada maahir baro fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir waa walaalkiin cabdulqani bebiyad cabdulqani maahir maanta waxaan rabaa inaan isla sameyno websitekan aad u jeedaan halka full name ku qoran tahay magacaada saddexan baad gelinaysaa halkana username magacaad ku isticmaalayso halkana emailkii halkana phone numberkii halkana passwordkii baad gelinaysaa marka registration form yar oon diyaariyey insha allah waxaan rajeynayaa in haddii aad ila fiirsato inaad kan oo kala dhisi karto ama ku qurux badan marka aan cashirkeena bilowna insha allah halkan waxaan ku haystaa folder baan ku haystaa magaciisu yahay form registration folderkan soo furanayaa folderka gudihiisa waxaa igu jira background baa igu jiro iyo html kan sii samaystay sidoo kalena css kan sii samaystay markaan iska xidhno waxaan soo furanaynaa tax editor ayaan soo furanayaa halkan waxaa igu diyaarsan basic html structure ka igu sii diyaarsan halkan kalena linkii css ka iyo html ka waan isku xiray aan soo furno website-ka wakaa xataa waxaa noo sii samaysan title-kii waxaan sameynaynaa div magaciisu yahay container waxaan dhex gelinaynaa div kale oo magaciisu uu yahay title waxaan qornaa dot title asagaa noo sameynaya divka halka waxaan ku qornaa marka register ayaan ku qoraynaa register kabacdi waxaan sameynayaa form ayaan qorayaa formkii aan sameynaa formka dhexdiisa waxaan gelinayaa div magaciisu yahay user details waxaan qorayaa dot user details kabacdi asagaa ii qormayaa divka asagaa ii sameynayaa divka dhexdiisa waxaan gelinayaa div kale ayaan gelinayaa oo magaciisu yahay input box baan ka dhigayaa halka bacdi waxaan qorayaa span dot details span class namekiisu yahay details span dhexdiisa waxaan ku dhex qorayaa full name kabacdi waxaan sameynayaa inputkii ayaan sameynayaa input ayaan qorayaa kabacdi waxaan u sameynayaa placeholder oo ah gudaha waxa ku dhex jiro inputka waxaan ku qorayaa enter your name kabacdi waxaan ka dhigayaa required in loo baahan yahay oo laga tegi karin ayaan ka dhigayaa required ayaan ka dhigayaa kabacdi waan soo furaynaa website-keena ayaan soo furaynaa oo kaas waa noo soo galay register iyo full name iyo inputkii waa noo soo galay kabacdi waxaan ku laabanaa html-keena ayaan kusoo laabanaynaa waxaan sameynaynaa waxaan koobiyeynaynaa divkaas input box-ka 6 jeer ayaan bast ku dhaxaynaa hoos annagoo ku dhex jirno divka containerka aan ka dhex bixin iyo formka aan ka dhex bixin bast ayaan dhahaynaa aan iska sheeg garayno inay 6 tahay 1 2 3 4 5 hal xaba noo dhiman halka xaba aan bast garayno marka waa kaas waa noo sameeyey waxaa noo dhiman hadda inaan magacyada ka bedelno aan mid kasta magaciisa ku sameyno halka waxaan ku qoranaa username baan ku qoraynaa halka kalena enter your name ku qoran tahay waxaan dhahnaa enter your username halkan kale ayadan waxaan ku qoraynaa email ayaan ku qorayaa email
email ayaan ku qorayaa halkan kalena enter your email ayaan ka dhigayaa marka way noo diyaarsan tahay uun hal xabo maan sameyn inta kale waan bedelinaa uun halkana phone number ayaan ku qoraynaa kabacdi halkaan waxaan ku qoraynaa enter your number ayaan ku qoraynaa placeholderka halkan hoose waxaan ku qoraynaa password halka password ayaan ku qoraynaa halkan kalena waxaan ku qoraynaa enter your password halkan kalena waxaan ku qoraynaa confirm your password aan ku qoraynaa halkaas confirm password halkan kalena waxaan ku qoraynaa enter your confirm your password baan ku qornaa confirm your password your password kabacdi aan soo furno website-keena oo kaas waa bedelay full name username email iyo phone number iyo password iyo confirm password waa noo sameeyey marka hadda waxaa noo dhiman keliya inaan button samaysano buttonkaas oo ah register marka qoraalka halkaa la geliyo kii lagu dhufan lahaa button ayaan sameynaynaa halkaa labada div ayaan kasoo baxaynaa divkan baan kasoo baxaynaa formka dhexdiisa ayaan soo gelaynaa halkaas waxaan sameynaynaa div button ayaan sameynaynaa class namekiisu yahay btn class btn بعد waxaan ku qorayaa halka register ayaan ku qorayaa markaas noo soo galay registerka waa soo galay hadda waxaan sameynaynaa css ka ayaan soo furaynaa basic css ka ayaan sameynaynaa xidig kabacdi margin 0 ayaan ka dhigayaa paddingkana sidoo kale 0 ayaan ka dhigayaa font family-gana waxaan ka dhigaynaa sans serif markaas farta xitaa waa isbedeshay waa qurux badnaatay hadda halkaa font family hoosteeda waxaan ku qorayaa box sizing ayaan ku qorayaa border box ayaan ka dhigayaa kabacdi boodiga website-ka ayaan css u sameynaynaa body ayaan dhahayaa display-ga waxaan ka dhigayaa falkis baan ka dhigayaa height-kan waxaan ka dhigayaa 100 ph oo ah dheerarka dhan leekiisii justify content waxaan ka dhigayaa center justify content center ayaan ka dhigayaa align itemskan waxaan ka dhigayaa center kabacdi waxaan sameynaynaa background ayaan u yeelaynaa boodiga kabacdi background aan qoraynaa background halka gudaheeda url-ka dhexdiisa background kaas uu noo soo baxayba ku dhufo save dheh ma imaanin maxaa khaldan waxbaa khaldan sorry halkaas weeyaan kalarkan ka saara background bes aan ka dhigaynaa save kabacdaan fiirino halkaa sawirka waa soo galay sawirka si saxa ma aha sawirka wanaan sameyno background position waxaan dhahaynaa center background position center background size waxaan dhahayaa cover save dheh kabacdi fiiri wakaas هذا background si sax ayuu noogu samaysmay padding waxaan ka dhigaynaa time pixel ayaan ka dhigaynaa
marka waa kaas waxa isma bedelin diifka containerka aan soo koobisanayna u koreeyo diifkaas aan soo koobisanayna dot ayaan ka hormarinayaa container aan ku basgareynayaa max width waxaan ka dhigayaa 700 oo pixel baan ka dhigayaa widthigana waxaan ka dhigayaa 100%. background waxaan ka dhigayaa background RGB 255 kale 255 kale waa xadiin maxaa save deh aan fiirino intaan baadhi ku sameynin save deh aan fiirino wakaa waa u sameeyey background waa u sameeyey bacdi baadhin waxaan ka dhigaynaa 25 pixel iyo 30 pixel ayaan ka dhigaynaa border radius waxaan ka dhigaynaa 5 pixel aan fiirino website-keena oo kaas containerka aan koobiysanaynaa halkaan aan baas ku dhahaynaa waxaan soo qaadanaynaa title-ka oo register-ta ah class name-ka title-ka ayaan soo qaadanaynaa wax yar baan space u dhexaysiinaa dot baas ayaan ku dhahaynaa font size waxaan dhahaynaa 25 pixel font weight-kan waxaan dhahayaa 700 position-kan waxaan dhahayaa relative ayaan dhahayaa save deh soo fiiri markaas waa weynaatay waxaan inta dhammaan koobiysanaynaa xariijin yar ayaan u sameynaa underline ayaan qurux badan baan u sameynaa kabacdi waxaan gelinaynaa quotation labada dhibcood baan gelinaynaa kabacdi b4 ayaan qoraynaa content ayaan qoraynaa baadhow baan ka dhigaynaa nag baan ka dhigaynaa contentiga xukuma qorayno position waxaan dhigaynaa absolute ayaan dhahaynaa leftiga waxaan ka dhigaynaa 0 button 0 height-ka waxaan ka dhigaynaa 3 pixel width-gana waxaan ka dhigaynaa 30 pixel ayaan ka dhigaynaa background-gana waxaan ka dhigaynaa color RGB baan ka dhigaynaa aan qoraynaa 31 13 ayaan ka dhigaynaa colorkaas ayaan ka dhigaynaa buluug maari camal oo kale ah aan fiirino markaas waa soo galay underline-ka ninka
area hoosteeda ah ayaa soo galay. kabacdi waxaan ku biisanaynaa containerka. marka waxaan soo kubiisanaynaa formka ayaan dhahaynaa, waxaan soo kubiisanaynaa user detailka ayaan soo kubiisanaynaa, user detail divkaas ayaan soo kubiyanaynaa, halkaas dot intaan gelinaa ayaan gelinaa bas ku dhahaynaa. displayga waxaan ka dhiganaa flex ayaan ka dhigayaa. markaas displayga sidaas buu ka dhigay. marka flex waraab ayaan dhahaynaa si iskugu soo laabato. waraab aan fiirino hadda. marka halkaas sax si saxda noqotay. markaan space u dhaxaysiino justify content space between baan dhahaynaa. justify content space between save deck. kabacdi aan fiirino hadda marka halkaas space baa u dhaxeeya. okay hadda halkaas space baa u dhaxeeya. kabacdi waxaan dhahaynaa margin waxaan ka dhigaynaa 20 pixel iyo 0, 12 pixel iyo 0. save deck. weli wax kuma isma bedelin hadda. waxaan soo kubiinaa formkaas iyo user detailka baan soo kubiisanaa, containerka baan ka teginaa. kabacdi waxaan kaloo soo kubiisanaynaa HTML-kan teginaa, waxaan soo kubiisanaa import boxka class namekaas. import box ayaan soo kubiisanaynaa dot save bast baan ku dhahaynaa. kabacdi waxaan dhahaynaa margin button waxaan dhahaynaa 15 pixel. marka kaad waa u dhaxeeya hadda. birtigan waxaan ka dhiganaa kaalkii baan dhahaynaa 100% slash waxaan dhahaynaa 2. kabacdi waxaan dhahaynaa 20 pixel. save ayaan dhahaynaa. kabacdi intaas waan ku biisanaa formkan ka teginaa. waxaan soo qaadanaynaa details classka name detailska ah. halkaa hore ayaan ku daraynaa dot details. kabacdi waxaan dhahaynaa display waxaan dhahaynaa block baan dhahaynaa display block. font weight-kan waxaan ka dhignaa 500. margin button waxaan dhahaynaa 5 pixel baan dhahaynaa. kabacdi aan fiirino marka dabakaas waa u dhaxeeyaa margin u dhaxeeya emailkii phone numberkii iyo inputyada. waxaan ku biisanaynaa user detailka input boxkan ku biisanaynaa. kuwi baan dhahaynaa. kabacdi input ayaan ku daraynaa. height waxaan ka dhigaynaa 45 pixel. width-gan waxaan ka dhigaynaa 100%. 100% waan ka dhigaynaa. marka haddaan fiirino wakaas sidaan rabnay bay noqotay. markaad wax yar baa dhiman.
outline waxaan ka dhignaa none. Border radius waxaan ka dhignaa 5 pixel. markaas border waxaan dhignaa 1 pixel solid iyo 3 cc cc. band left waxaan ka dhignaa 15 pixel. wakaas qoraalka ka soo durkay interior namekii qoraalka placeholder baa ka soo durkay. font size kan waxaan ka dhignaa 15 pixel 16 pixel ma. border radius border bottom waxaan ka dhignaa 3 pixel. border bottom width waxaan ka dhignaa 3 pixel. sidoo kale right kan aan u sameynaynaa waxa hadda uu ku daray borderka uu soo burniyay uu ka burniyay hore waxay 1 pixel bay ahayd. haddaan right kan ku daraynaa border right width sorry bottom aan qoray right width sidoo kalena 3 pixel aan ka dhignaa. marka wakaas isagana uu ku daray right waa ku daray. page-ka dhan baan koobiyeynaynaa copy aan dhahaynaa waxaan ku daraynaa focus dibaaxdan waan koobiyeynaynaa sawiraan waan koobiyeynaynaa macal focuska copy aan dhahayaa kuma halkan gelinayaa paste ayaan ku dhahayaa. waxaan ka bedelayaa magaca focuska waxaan ku qorayaa valid. handaya border color RGB colorkeena baan ka dhiganaynaa 370 marka wakaas markaas loo galo colorka qurux badnaanaya qalbaka lagu taagan yahay weeyaan qalbaka lagu taagan yahay. transition waxaan dhahaynaa all 0.5 second easy. marka wakaas kabacdi waxaan soo koobiyeynaynaa buttonka ayaan hadda hagaajinaynaa dot ayaan gelinaynaa dot btn hadayna padding waxaad ka dhigtaa 3 pixel iyo 10 pixel ka dhig. fiiri hadda wax yar bay yar weynaatay. kabacdi waxaan u sameynaynaa background ayaan u sameynaynaa kalarkii horaan haysanay ka dhiganaa 360 iyo block maariga camal ahaa kalarkan cadaan ayaan ka dhiganaa white. fiiri wakaas marka borderka aan ka saarna hadda outline-ka font size kartaan marka hore sameyno font size 15 pixel بعد width-ga 150 pixel ayaan ka dhiganaa. hadda fiirino
markaas height wax yar aan ku darno height-ka 30 pixel ama 40 pixel aan ku dayno marka hore height 40 pixel fiirino sidoo noqda marka markaas border radius 5 pixel border waxaan dhaynaa none font family waxaan ka dhaynaa font weight waxaan dhaynaa 300 font weight waxaan ka dhaynaa bold ka bold buu noqday هذا marka waxaan sameynaynaa bit buttonka ayaan u sameynaa hover ku bisanaa buttonka ku biyana ku darno hover background waxaan dhahnaa haddii ma ka dhignaa wait color waxaan ka dhignaa colorkani wili mari amalka kore save marka hadda wax yar aan opacity ka dhigno background-ga opacity ka dhigno kor ayaan u laabanaa halkan meesha 25 waan gelinaynaa بعد 0.70 aan ka dhignaa 0.8 save baan dhahnaa marka toolkaas si yar qurux badan buu u sameeyay cashirka ku xigta kulmayno waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh